dadka reer Muqdisho ayaa saakay ku waabariistay furnaanshiyaha wadooyin muhiim u ah socodka gaadiidka caasimadda kadib markii laga qaaday dhagxaantii tiilay. Wadooyinka dhagxaanta laga qaaday ayaa waxa ay yihiin wadooyinka ka yimaada wadada halbowlaha ee Maka al-Mukarrama ee aada wadada wadnaha. Wadooyinka ka soo baxa dabka iyo sayidka ee soo kala aada Howlwadaag iyo isgoyska Bakaaraha ayaa ka mid ah wadooyinka dhagxaanta laga qaaday, waxaana ay muhiim u yihiin dhaqdhaqaaqa suuqa weyn ee Bakaaraha. Sidoo kale meelaha saakay la furay waxaa ka mid ah wadooyin soo gala Sanca, Afarta Darjiino, Siinay, Xarir Yaale oo dhammaantood ka tirsan wadada wadnaha ee magaalada Muqdisho. halkani waa isgoyska Bakaaraha ee magaalada Muqdisho. waxa gaadiidka gaar ahaan gaadiidka nooca loo yaqaan bajaajta si caadi ah u isticmaalayaan wadada xiriirisa isgoysyada dabka iyo sidoo kale isgoyska Bakaaraha, iyadoo gabi ahaanba la qaaday dhagxaantii ku go'naa wadada. wadooyin fara badan ayaa laga qaaday dhagxaanta. wadooyinkaas waxay ahaayeen kuwo ku teesan wadada wadnaha oo ka mid ah wadooyinka muhiimka u ah isku socodka gaadiidka magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. dadka isticmaalaha wadooyinkaasi oo isugu jira darawallo iyo waliba dad kale oo caadi ah oo u soo ganacsi taga suuqa weyn ee Bakaaraha ayaa si weyn u soo dhaweeyay furitaanka wadada isku xirta isgoysyada dabka iyo sidoo kale isgoyska Bakaaraha. waxaana sidoo kale dadku ay si aad ah u soo dhaweeyeen isgoysyada kale ee maanta la furay. waana ku faraxsanahay in wadooyinkan loo furo. waana soo dhaweynaa wallahi zaxmadu aad u badato iyo waxaan lahaay isgoysyadu zaid macnaa jaamka oo ilaa waqti badan 30 daqiiqo ilaa 20 daqiiqo ay qaadato aan ku qabnay. hadda yartaana waa ku faraxsanahay maadaama loo furay boqolkiiba boqol. maanta waxaan ku faraxsanahay wadadan oo rafaad iyo wareeg ah u soo mari jiray anoo inta alaab ka qaadayo aan arkay saaki iyadoo la furayo aad iyo aad hambaliya leeyahay. inta dhimanna inay noo dhameystiraan insha Allah. aragtida ku aadan sidaan u arka waxaan u arkaa ayadda quraanka ay ahayd in macal usri yusran waxa waa culays marka waxaan u arkaa aragti fiican oo aan ku faraxsanahay oo malaynahay in inta kale ee ah dadweynaha magaalada Muqdisho ku nool in farxadda aan qaba ay la qabaan. maanta waxay la mid tahay maalin ah iid, yani dadka lugahooda ama xuriyadda xagga socodka ay u furanta. Allah wax wanaagsan ayaan arkaa oo maxal celinay ra'iisul wasaaraha maadaama uu wadooyinku noo furay wareeg iyo jag iyo dhexdhexayna dhibeen. insha Allah aadan u mahadcelinay madaxweyne ra'iisul wasaaraha. dhibaatooyin ku qabnay waxaan ku qabnay wareegasho iyo raaxaan iyo godgod iyo biyo iyo mataqaanaa lacag laan ku qabnay inta waa ku qabnay iyo cariiri wadooyinka kale cariiri sayd ah intaas aan qabnay. wallahi waxaan joogaa isgoyska Sanca gaar ahaan degmada Kaaraan kulleeto aad iyo aad u soo dhaweynaa xaaladda dhacday dhagxaan la qaaday wadooyinka la furay bulshada oo u fududaatay waxyaabihii hore oo cakirnaadii dhagxii laga qaaday aad iyo aad aan soo dhaweynaa. waliba waxaan jeclaa meelaha kale oo xiran macnaha dhagxaan laga sii qaado si macnaha kala furnaashada bulshada shacabka ay si aad iyo aad dadweynaha isugu gudbaan. gaadiidka nooca loo yaqaan bajaajta ayaa iyagu si caadi ah u isticmaalaya wadooyinka la furay, inkastoo ciidamada ammaanka ee ku sugan baraha laga qaaday dhagxaanta ay celinayeen gaadiidka BL-ka kuwaasi oo ka kala wareegayay goobihii horey ay uga kala wareegi jireen. aniga ma arag maanta wada furan mana loo ogolo BL-da inay leexdaan. waxa la isku ajaray dadweynaha baabuurta BL-da waday iyo askarta qoryaha wadato. waxa sababteeda leh dadka idaacadaha leh waxaan jirin oo been ay sheegeen. qofkii leexdana foolka xabad looga dhiftay dhibkaas jiro. waa dhici kartaa wax dhici kara waa askariga amar waxa la siiyo baabuur soo leexanin. dadweynahana idaacadaha waxay ka dhageysteen waa lagu leexan karaa. waa laba arrin oo isdiidan. waa kaas hadda baabuur taagan askari ah rugo waa kaas. dhagxaanta laga qaaday wadooyinka gala isgoysyada wadada wadnaha ayaa la geeyay isgoysyo kale oo ka tirsan wadada warshadaha ee magaalada Muqdisho. muddo ku dhow 3 sano ayaa wadooyinka maanta la furay waxay ahaayeen kuwo aan la isticmaalin ka gadaal markii dhagxaan lagu xiray sababo dhinaca amniga sida dawladdu ay sheegtay. dhawaan ayay ahayd markii sidan oo kale dhagxaanta looga qaaday bara control oo ku yaala magaalada caasimadda. ilaa haatan saraakiisha laamaha amniga ma aysan ka hadlin wadooyinka dhagxaanta laga qaaday. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho.